xuska maalintani qaran ee 18 May ayaa si weyn lagu xusay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Xuskan oo maanta ka duwanaa xusaskii kala duwanaa ee soo maray Somaliland ayaa saaka magaalada Burco mar kale ay isu bedeshay calanka Somaliland. waxaana shacabka ku dhaqan magaalada Burco ay dhamaantood ku soo labisteen dharka samaysan calanka Somaliland. Fagaaraha airport-ka magaalada Burco oo halkii lagu qabanayay munaasabadaasi ayaa waxaa dowladusyo aan hore loo arag ka muujiyay ciidamada qaranka Somaliland iyaguna gaardi ku maray bartamaha airport-kaasi. waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiirka macdanta iyo tamarta, wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta, barasaabka gobolka Togdheer, maayirka degmada Burco iyo madax kale oo aad u tiro badan. waxaana halkaasi hadallo ku saabsan xuska maalintan qaran iyo 18 May ka soo jeediyay goobtaasi wasiirada macdanta iyo tamarta, wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta, maayirka degmada Burco, barasaabka gobolka Togdheer. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa inaynu abaabulkeena waxa weeye xuskeena maalintan uu noqdo uu yahay maalin meel inaga taala inuu gobolada Somaliland oo aan ku seexanay oo aan ku jiifno ayaan salaan gaar ugu dirayaa waa maalintii May waa maalin inagu weyn waxaa hogaaminaya xilligaa SNM oo oday ka ahaa dagaalkaana saxeexay madaxweynaheena maanta jooga Ahmed Maxamed Maxamuud Siiraayo 1991 bisha May ee aynu maanta joogno 18 waa maalintii ugu horeysay ee aynu dib ula soo noqono kuna dhawaaqno isaga oo hogaaminayay madaxweynihii koowaad ee Somaliland ee xilligaa Cabdiraxmaan madaxweynuhu wuxuu dhammaan isbedel ku sameeyay dhismayaasha qaranka ee wasaaradaha oo halkaa fadhiga ay lagu maamulo dowladda wasaaradaheeda. marka aad isku soo geyso taasi waxay muujinaysaa in aynu dhammaystiranay hanaagii dowladnimo ee looga baahnaa dowladda doonaya waynu dhammaystirnay gudaheena. qaar ka mid ah shacabkii u soo baxay xuskaasi waan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa cabiray dareenkooda ku aadan maalintani qaran. waxaan nahay dal hagraday inay dunida gaaraan iyo dawladnimada laga nabin. waxaan nahay dal hagraday oo deeq waxay lahaayeen dad kala waxaa dayday bay ka qaadan daacad aan fadhi. Shaafici Maxamed Ibrahim, Kalsan TV, magaalada Burco.